بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada waa barnaamijkeeni su'aalaha iyo jawaabaha qaybtiisii labaad. Su'aasha koowaad ee barnaamijka: sheeg xalaal waa la neceb yahay. Jawaab: waa furiinka ama dalaaqa. Su'aasha labaad ee barnaamijka: sheeg haweeneydii uu guursaday nabiga geeridii Khadiija kadib. Jawaab: waa Sawda bintu Samca. Su'aasha saddexaad ee barnaamijka: sheeg nabiga sallallahu calayhi wasallam wuu banaaneed inuu guursado sagaalkii xaas kadib. Jawaab: waa maya oo Ilaahay ayaa quraankiisa ku leh laa taxillu laka nisaa'u min bacdu. Su'aasha afraad ee barnaamijka: sheeg ma u bannaan tahay haweeneyda inay isfurto haddii zawjkeedu ku dhaho isfur? Haa, way u bannaan tahay inay isfurto. Su'aasha shanaad ee barnaamijka: sheeg naag iyada oo xayd qabta la furi karo. Jawaab: waa midda qulactantay ama dalaaqeeda gadatay. Su'aasha lixaad ee barnaamijka: sheeg naag haddii aad dalaaq ku furto aan la soo ceshan karin. Jawaab: waa naagta qulactantay ama dalaaqeeda gadatay. Su'aasha toddobaad ee barnaamijka: sheeg afar nin oo aan dalaaqoodu dhacayn. Jawaab: waa sabiga ama cunuga, kan waalan, ka hurdaayo, iyo kala dirqiyay. Sideedaad ee barnaamijka: sheeg ma bannaan tahay in garoobka la bixiyo iyadoon ogeyn. Jawaab: ma bannaano. Su'aasha sagaalaad ee barnaamijka: sheeg weliimo ay waajib tahay inaad aado. Jawaab: waa weliimada nikaaxa. Su'aasha tobanaad ee barnaamijka: sheeg qof aan caadil ahayn oo weli noqon kara. Jawaab: waa haddii addoonteeda sayidkeedu uusan caadil ahayn, wuu nikaaxi karaa isaga.